الله naxariistee cabdnaasir janna galiya cabdi qani oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ay ku nool magaalada Cape Town ayaa koox burcad South African ah waxay ku dileen xaafadda Elsis oo hoos timaada deegaanka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Belville. kooxda burcad ay falkan geesta ayaa waxa la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxaha tuugada ah ee deegaankaasi degan isla markaana iyaga iyo labada muwaadin oo ay dileen hore ay u dhaxmartay xurguf iyo hanjabaadyo la xiriira inay ka haraan dacwad ka socotay maxkamadda magaalada Cape Town oo ay wadeen Cabdnaasir iyo cabdi qani taa oo la xiriirtay nin burcad ka mid ah oo hore dhibaato ugu geystay muwaadiniinta Soomaalida oo wali iminka xabsiga ku jira. burcadda falkan geesta ayaa goobta isaga baxsaday iyadoo labada muwaadinna ay ku geeriyoodeen isla goobta uu falku ka dhacay. maxamed cabdi maalin sanka oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee ugu horeeyay oo gaaray goobta uu falku ka dhacay ayaa warbaahinta qaranka waxa uu sheegay in xoraansi ay la sameeyeen dadka deegaanka ay ku ogaadeen kooxda falkan geysatay. sida darteed wiilasha hadii hadda qaabka loo dilay iyo xogaa ka taabto waxa loo sheegay wiilasha mid kamid ah in maartay nin ay istagaaleen hadda koor macna uu dacway wiilkii ninka uu ku dacway uu xiray wili waxa loo sheegay in ninka la dilay ninka xiran hooyadiis in aad u tigid wiilkan hadda la dilay shalay oo wiilka kala saaxiibkiisa la dilayo in macna ay ku tiri wiilkayga la isoo daayo ana oo ku yiri sharciga ku kala baxayna halkaasna maamadii iyadoo u rabeynaysa ay ka tagtay waxaana maartay hadda soo ifbaxaysa oo maartay dadka deegaanka iyo maartay rag kale ay sheegeen in ninkaas xiran oo ka dambeeyay falkan hooyadiis iyo asagaba familkiisa. dilkan loo geystay labada muwaadin ayaa waxa uu noqday mid si weyn looga dareemay magaalada Cape Town iyadoo shacabku ay aad u hadalhayeen sababaha loo dilay balse gudoomiyaha jaaliyadda Somali community Yusuf Umar Ahmed ayaa sheegay in falkan uu noqon doonin mid cabsi geliya ganacsatada Soomaalida. dacwadii ay ku guda jireen Cabdnaasir iyo cabdi qani ay halkoodii ka sii socod doonto ilaa laga xukumo kooxaha iminka gacanta lagu hayo. بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون الله naxariisto walaalaha Soomaaliyeed oo si isku mid ah loogu dilay shalay Elsis ilaahay hanaga sabar siiyo dhamaan ahalkii iyo ahsaabtii na waxaan leenahay madinta waa ilaahay Allah naxariisto insha Allah taala waxaan ballan qaadaynaa anagoo kaashanayna bulshada qaybaheeda kala duwan walaalahaas meesha ay ka baxeen inaan buuxin doono oo aysan ka dhuuma doonin sharciga waxaan rajaynaynaa maalmaha kamid ah in sharciga la horkeeni doono ninka hadda xiran oo hadda kiiskan ku lug lahay oo lagu tala galay in kiiska la soo afjaro insha Allah taala kuwi kale intoodo dimbilayaasha ah oo walaalaha Soomaaliyeed dileena in iyagana xaqa ay leeyihiin laga jaaziyo ayaa waxaan ka codsanaynaa dawladda insha Allah taala waana u dagaalami doonaa. Allahu naxariistee labada muwaadin ayaa waxa lagu aasay Qabuuraha Muslimiinta ee magaalada Cape Town iyadoo ay ka soo qayb galeen Soomaali aad u fara badan oo ka xuma weerarka lagu dilay muwaadiniintani Soomaaliyeed. Cabdillahi Maxamuud Amiin Cabdillahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa.